imika waxaynu u wareegaynaa wararka ku aadan xiisadda ka dhex aloosan Israa'iil iyo Iiraan. Haddaba iyadoo arrintan cirka ay ku shareeran tahay ayaa goor dhawaato waxaan jawaab kulul ay ka soo baxday dhanka Iiraan. Safaaradda Iiraan ay ku leedahay magaalada Beirut ayaa war ka soo baxay waxaa si kooban loogu sheegay in ay muhiim tahay in la beegsado cadowga iyadoo la sheegayo tilaabo kasta iyo qaab kasta oo loo beegsan karo in ay diyaar u tahay Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan. Arrimahan ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo laga cabsi qabo weerar ballaaran oo Iiraan iyo kooxaha ay taageerto ay ku qaadaan Israa'iil taasi oo laga jawaabayo dilkii mas'uuliyiin ka tirsan Xamaas iyo Xisbullah Israa'iil ay u geysatay dabayaaqadii bishii aynu ka soo gudubnay ee Juulaay. Isla wararkan sidoo kale waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Israel Katz oo wadahadal la yeeshay dhiggiisa dalalka Faransiiska iyo Britain ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in wadamadan ay ka qayb qaataan waa Faransiiska iyo Britain difaaca iyo weerar Israa'iil ay fuliso. Wakaaladda wararka ee AFP ee Faransiiska laga leeyahay ayaa waxay sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil uu u sheegay mas'uuliyiintan ka yimid dhanka Faransiiska iyo Britain in ay filayaan in dalalkan ay ku soo biiraan difaaca Israa'iil. weliba wuxuu leeyahay difaaca kaliya ma ahane waxaynu u baahannahay xitaa inaad ka qayb qaadataan weerar aynu fulino oo lagu beegsado goobaha muhiimka ah ee Iiraan sida hadalka uu u dhigay. waaye warbixintii ku saabsanayd muuqaalkii la yaabka lahaa ee Xisbullah ay soo bandhigtay waan idin soo gudbinaynaa laakiin aan eegno markan dhanka Yaman. Taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ee CENTCOM ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegeen in ay burburiyeen saldhig dhulka hoostiisa ah oo kooxda Xuutiyiinta ay ku leeyihiin gudaha waddanka Yaman. waxaana ay sheegeen saldhigan in uu khatar ku ahaa ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulafada iyo weli maraakiibta ganacsiga ee gooshaysa xeebahaasi. ma jiro wax walaah oo ka soo baxay Xuutiyiinta laakiin xalay warbaahinta Xuutiyiinta ku dhow ayaa waxay sheegeen in la duqeeyo degmo ka tirsan magaalada Xudaydah ee waddanka Yaman labana soo sheegin qasaaraha duqeyntaasi ka dhalatay. tan iyo bishii January ee sanadkan Mareykanka iyo Britain ayaa waday duqeymo ay doonayaan inay ku wiiqaan awoodda Xuutiyiinta laakiin hogaamiyaha Xuutiyiinta Cabdimalik al-Xuuti oo shalay hadlay ayaa sheegay in hal asbuuc oo kaliya 15 gantaal ay ku weerareen maraakiib Mareykanka iyo xulafadiisu ay leeyihiin. waaye haddaba xiisadda bariga dhexe iyadoo ka sii daraysa lagana cabsi qabo Xisbullah inay qaado weerar ay kaga aargudanayso Israa'iil dilkii ay u geysatay Fuad Shukri oo ahaa taliyihii ciidamada Xisbullah ayaa maanta Xisbullah waxay soo bandhigtay muuqaal kooban oo lagu macneeyay magaalo dhan hadda waa magaalo dhan oo gantaalada lagu talagalay dhulka hoostiisa ku taal. dhulka hoostiisa ayaa ula jeedaa magaaladan baabuur baa dhex socota gawaari waaweyn. dabcan muuqaalkaas inama tusi karno laakiin haddaynu isku dayno sawir guud inaan ka bixinno waxa weeyaan waa godadka dhulka hoostiisa ah waa dhufaysyo laakiin layrarka iyo derbiyadaasi sida ay u dhisan yihiin iyo gawaarida waaweynka oo ku socota iyo weliba gantaalada meeshaas ku rakaban wax laga sheekayn kara ma ahan. haddaba si kooban muuqaalkaasi sawir ka mid ah ayaan idintu soo gudbinaynaa. markan waxaa la leeyahay gaarigan wuxuu u diyaarsan yahay gantaalada dul saaran in la rido. wuxuu ka soo dhaqaaqayaa meel loogu talagalay in lagu kaydiyo kadibna wuxuu imaanayaa godka afkiis halkaasaa la sheegay markaa inay diyaar u yihiin in la rido. luuqadda carabiga lagu hadlayaa mararka qaarkood waxa la soo qaadanaya hadalka hogaamiyaha Xisbullah Sheikh Xasan Nasrallah laakiin waxa lagu turjumayaa luuqadda Ingiriiska iyo luuqadda Hibrowga ama Cibraaniga ee Israa'iil. waxaana la socda muusig aad u naxdin badan. waxaa loogu talagalay baa laleeyahay muuqaalkan digniin ba'an Israa'iil lagu siiyo. weliba muuqaalkaas markii la soo geliyey telefishinada qaarkood sida Almayadiin oo kale dadka falcelinta ka dhiibanaya way la yaabeen. waxaa laleeyahay Israa'iiliyiinta loogu talagalay wadnaha in la jaro. waa arki doonaa wixii warar arrintaas ku soo kordha. waayahay war degdeg ah oo goor dhawata soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa in dhulgariir oo ku dhuftay wadamada Jordan iyo Syria. dhulgariirkan ayaa la sheegay cabirkiisu inuu yahay 5.6
ilaa hadda lama soo sheegin khasaaraha ka dhashay warkan waa war goor dhaweyta soo dhacay intii aynu barnaamijkan soo gelin hagaag colaadda Ukraine iyo wararkii ugu dambeeyay haddii aynu qoraansano militariga Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in ay ka hortageen ugu yaraan 5 weerar oo xalay iyo saaki hiirtii waa bari ruushku u soo qaaday uu ku soo weeraray dhowr gobol waxa la sheegay in weerarkaasi hubka loo adeegsaday ay ka mid ahaayeen 3 gantaal oo nooca plastikada ee loo yaqaano Iskander M meelaha la weerar ayaa waxa ka mid ah magaalada Kiev ee caasimadda ah iyo waliba gobolka Kryvyi-Rih waxaana taliska militariga ee Ukraine fariin ay soo dhigeen barta Telegramka ay ku sheegeen in ay ka hortageen weerarkaasi oo sidoo kale loo adeegsaday diyaaradaha nooca loo yaqaan Shaheed oo Iran ay farsamayso laakiin Ruushku muddooyinkii ugu dambeeyay uu adeegsanayay weerarada uu soo qaadayo dabcan halkan sida kaga muuqatana waa diyaaradda Shaheed ee ismiidaamisa ama daroonka cidina aysan wadin oo muddooyinkan loo adeegsanayay dagaalka Ukraine ku soo dhawow Safari Remit warkii ugu mudnaayo waliga aad maqashaan hadda ku waramaya ee kaalay u hesho Safari Remit haddii aad ku nooshahay dalka UK Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka ku jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo waliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay macaamiisha cusub waa khidmad la'aan 3 jeer ugu horeysa lacag diristooda isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan waxaana ka xigta inaad booqatid www.safariremit.com waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga mobilkaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto Safari Remit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka UK mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika Safari Remit rugta lacag dirista ugu fudud baahi tiraha baahi loo qabay Safari Remit Sana Keralis waa madal si dhaba suuqyada bannaan iyo shaqo sahaminteed saldhigeedu yahay waxaana ay si wacan ula soconaysaa sida aad rabto wayna saacidaa Sana Keralis ee adiguna la soco oo sidii hore ka dhayo ma tahay xirfadle ka shaqeeya ama danaynaya inuu ka shaqeeyo qaybaha daryeelka caafimaadka ee keerka loo yaqaan dhammaan gobolada dalka UK haddii ay jawaabtaadu haa tahay xarunta Sana Keralis waxay idiin soo wadaa fursad aad ku heli karto shaqooyinka keerka oo kaaga mushaar badanaya inaad u shaqayso Care Agency adigoo adeegsanaya adeegga casriga ah ee Sana Keralis Sana Keralis waxay ka caawinaysaa inaad hesho shaqooyinka dhanka keerka sida hourly care shaqo saacadle ah night shift care shaqo shift habeenka live in care shaqo guri la joog bukaan respite care inaad bedesho qofka adeegga keerka ka shaqeeya xilliyada fasaxa dementia care inaad caawiso ama xanaanayso dadka waayeelka oo ogaalkoodu daciifo Sana Keralis waxa aad kaga maarmaysaa inaad u shaqayso agency oo adiga iyo loo shaqeeyaha ayay isku keenxiraysaa nidaamkana waxa uu suurto gelinayaa inaad ku shaqayso mushaar ka wanaagsan agency-ga kaliya waxaad u baahan tahay inaad booqato website-ka www.sanakeralis.com oo aad iska diiwaan geliso kadibna aad doorato shaqada aad doonto goob kasta oo aad doonto oo ka mid ah dalka UK wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir oo booqo www.sanakeralis.com ama telefoonka iyo emailka shaashada kaaga muuqda Muqdisho Home Center aqal wada xariiriyo fadhixiisa loo qabay aroosyadu xasuustaan waxay xoog u yaalaan Muqdisho Home Center xaajiga arooska iyo xaflad guurdhigayo warkaygan xaqiiqda xuuraamiyo dhuux xujana yuusan kugu noqon gabar xuural cayn u eg xaakim waa ku siiyay xasil say u ahaato xiskeeduna u qaboobo qalabka ay xabiibyadu xiisaha u qaadaan xubbiguna ku siyaado ee Muqdisho Home Center gabadha xaaji u qaad Muqdisho Home Center waxay diyaar kula tahay dhammaan noocyada aqalada jiifka fadhiyada iyo qalab kasta oo reerka looga baahan yahay qalabka xafiisyada rogaga iyo agabka qadada oo dhameystiran iyo qalabka elektarooniga ah sida qasaaladaha talaagadaha kukarada TV-yada iyo wixii la mid ah waxaana ay ku taalaa degmada Boondheere gaar ahaanna nawaaxiga isgoyska Juba ama Busley kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah